arday cusub oo iskuulka ku soo biirtay ayaa caado ka dhigatay inay taabato gacanta ardayda ugu sarreysa ka hor imtixaanada. Sababta dhabta ah waxay ahayd inay ku xirnayd nidaam sir ah oo akhrin kara fikradaha dadka. Marka jirkoodu istaabto, waxay maskaxdeeda ku maqli jirtay waxa qofka kale ka fikirayo. Gabadhii ardayda ugu fiicnayd arrintan hore ayay u ogaatay, sababtoo ah waxay dib ugu soo noqotay nolosheeda kadib markii ay hore u dhimatay. Markii hore wax kasta oo ay isku daydo inay samayso, gabadha khiyaanada badan ayaa ka hormari jirtay. Imtixaanadii ay dib badan u gashay, darajooyinkeedii, xitaa saaxiibkeed mid ayaa looga qaaday. iyada oo adeegsanaysa kartida gabadha kale, gabadha khiyaanada badan waxay isu bedeshay arday qurux badan oo qof walba amaano, halka gabadhii dhabta ahayd lagu yaqaanay qof wax ka koobiyeeya oo dadku necab yihiin. Ugu dambayn, gabadhii ma qaadi karin ceebtaas, waxayna isku tuurtay meel sare. daqiiqadii ugu dambaysay ayay ogaatay in gabadha kale ay leedahay nidaam akhriya fikradaha dadka. Markay mar kale indhaha furtay, waxay isku aragtay hal sano ka hor maalintii imtixaanka ugu dambeeya. imtixaankani aad buu muhiim u ahaa. qofka kaalinta koowaad gala wuxuu helayaa fursad waxbarasho sare iyo martiqaad casho gaar ah oo ay qabanayaan qoyska Song. Ardaydii ayaa isla markiiba bilaabay inay hadlaan, sababtoo ah qoyska Song waa qoyska ugu taajirsan magaalada Hijen. haddii qofka qayb galo xafladooda, waxay noqon kartaa jid degdeg ah oo guul lagu gaaro. Gabadha khiyaanada badan ayaa isla markiiba xiisaynaysay. waxay macalinka u sheegtay in albaabka qabow ka imanayo, waxayna codsatay in kursigeeda lagu wareejiyo gadaasha gabadha. macalinku si degdeg ah ayuu u ogolaaday, laakiin gabadhii markan diyaar bay ahayd. markii ay isku dayday inay mar kale taabato, gabadhii si xoog leh ayay u riixday. sababtu waxay ahayd in markii ay mar labaad nolosha bilowday, ay heshay nidaam kale oo awood u leh inuu bedelo fikradaha maskaxdeeda. waxay isla markiiba maskaxdeeda ku bedeshay dhammaan jawaabihii saxda ahaa oo ay ka dhigtay kuwa khaldan. waxay go'aansatay inay nolosheeda cusub ku soo ceshato wax walba oo laga qaaday, isla markaana ay burburiso sumcadda gabadha khiyaanada badan. daqiiqada yar kadib, imtixaanku wuu bilaabmay. mar kasta oo ay su'aal ka jawaabto, gabadha gadaasha ka fadhida waxay si qarsoodi ah u taabataa si ay fikradaha u akhrido. laakiin waxa ay maqashay dhammaantood waa jawaabo khaldan. sidaas awgeed, gabadha khiyaanada badan waxay imtixaanka ku dhamaysay nus saac gudaheed iyadoo ku kalsoon jawaabaha ay maqashay. kadib imtixaanka, saaxiibkii gabadha ayaa u soo diray fariin uu ku hambalyeynayo, isagoo u malaynaya inay heshay fursadda waxbarashada sare. laakiin ka hor intaysan jawaabin, gabadha khiyaanada badan ayaa timid mar kale, iyadoo weydiinaysa inay la hadlayso saaxiibkeed. markay gabadhu aamusay, qaar ka mid ah gabdhaha kale ayaa bilaabay inay ku jeesteysaan. waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa in saaxiibkeedu ceeb yahay, taasina ay sabab u tahay inay weligeed si cad u sheegi weydo. markaas gabadhii maskaxdeeda ku fikiraysay in saaxiibkeedu yahay dhaxal sugaha qoyska Song. markii hore, fikraddan ayaa ahayd mid gabadha khiyaanada badan ka maqashay oo ay ku qabsatay saaxiibkeed, laakiin markan gabadhii si ula kac ah ayay u bedeshay fikirkeeda. waxayna maskaxdeeda ku tiri saaxiibkeedu waa nin aad u culus oo aan soo jiidasho lahayn. gabadha khiyaanada badan markay maqashay fikraddaas, si degdeg ah ayay gacanta uga qaaday iyadoo ka cabsanaysa. gabadhii waxba kama aysan dhihin. waxay si toos ah ugu tagtay macalinka si ay u tusto mashruuceeda tartanka. macalinku aad buu u ammaanay mashruuca, wuxuuna sheegay in haddii mashruucan lasoo bandhigo, fursadda waxbarashada sare ay ku dhowdahay inay gacanteeda gasho. laakiin hadalkaas waxaa maqashay gabadha khiyaanada badan oo albaabka gadaashiisa ku dhumanaysay. waxay doonaysay inay fikradda mashruuca mar kale ka xado. waxay u timid gabadha iyadoo iska dhigaysa inay raali gelin bixinayso. waxay sheegtay inay ka xun tahay ka qayb qaadashadii ay ku jeesjeesayeen, waxayna rabtay inay saaxiibo noqdaan. gabadhii isla markiiba way ogolaatay. haddii ay rabto inay wax koobiyeyso, ha koobiyeyso. dhammaan maalmihii xigay, gabadha khiyaanada badan waxay maalin kasta raadisay fursad ay ku taabato si ay fikradaha u maqasho. gabadhuna si ula kac ah ayay ula shaqaynaysay. gabadha markii hore aan xitaa barnaamijyada aqoon, waxay bilowday inay qorto koodhka mashruuca iyadoo adeegsanaysa fikradaha ay maqashay. qol wadaaga ayaa ku ammaanay inay tahay qof karti dabiici ah leh. ugu dambayn, maalintii tartanka ayaa timid. gabadhii si ula kac ah ayay u soo daahday. markay timid, gabadha khiyaanada badan ayaa si degdeg ah u qabatay, iyadoo leh waa inay degdeg u timaadaa, sababtoo ah iyada ayaa lagu doortay inay marka hore soo bandhigto mashruuca. gabadhii si degan ayay kursigeeda ugu laabatay. daqiiqada kadib, gabadha khiyaanada badan ayaa masraxa fuushay. iyadoo adeegsanaysa fikradaha ay maqashay, waxay hadal dheer oo kalsooni leh ka jeedisay mashruuca. garsoorayaashu aad bay u ammaaneen. dadkii dhegaystayna sacab bay u garaaceen, laakiin garsooraha ugu weyn oo ahaa brofesor caan ah, wejigiisu wuu madoobaa. markii gabadha khiyaanada badan hadalka dhamaysay, brofesorkii ayaa si caro leh u weydiiyey, qorshahan ma adigaa sameeyey? gabadha markii hore way naxday, laakiin markay aragtay gabadha kale oo fadhida hoolka, way deganaatay. waxay ogaatay inay iyadu ahayd qofkii ugu horreeyey ee soo bandhiga. haddii qof wax koobiyeeyey, dadka waxay u malayn doonaan inay tahay gabadha kale. sidaas darteed, waxay ku adkaysatay inay iyadu samaysay fikradda. laakiin brofesorkii aad buu u xanaaqay, sababtu waxay ahayd in fikradda mashruuca, qaab dhismeedkiisa, xitaa qorshihiisa oo dhan ay si sax ah ula mid ahaayeen maqaal cilmiyeed uu isagu daabacay 5 sano ka hor.